السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أصحابتا شبكة سد جروبس blogspot.com. هاي مقعي وعبيد داير هالكنا وشبكة سد جروبس blogspot.com. maanta cashiga aad ku xiisa badan dawada waxa ku bar doona qaabka iska xira message-ka qof kamid ah Facebook asxaabta Facebook kaasi oo aad nacday hadalkiisa ama hadal macna daraa marka kula hadlayo. Hadaba waxa doonaysaa in aad saaxiibtinimada aad iska dileen laakiin aad doonayso in message-kiisa iska xirtid iyo wicitaagiisaba. Hadaba waxaad samaysaa first of all waxaad soo furtaa browser-ka aad jeceshahay. In my case waxaan isticmaalayaa Google Chrome. Hadaba waxa make sure in aad login soo tiraado Facebook account-kaada. Okay, kadib waxaad imaanaysaa qofka doonaysa in aad markaadii aad xirto hadalkiisa. For example aniga waxaan ku baraabanaya kalhoonaho, this is my dear friend, ma jecel inaan ka xiro laakiinse waxa weeyaan waa example oo kaliya aan soo qaadanaya. Hadaba marka sidaan ku soo baxo qofka waxaad tagaysaa halka ay qoran tahay icon-ka yarka giga oo option ku qoran tahay ayaa ku dhufanaysaa. Kadib waxaad taabanaysaa halka qoran tahay block message. Okay, kadib waxaad arki doontaa sanduuqa yar ayaa ku soo furmi doona. Hadaba sanduuqa wuxuu leeyahay waxaad joojinaysaa uu leeyahay message-ka iyo wicitaanka uu qof kalhoonaha ku sameynayo. Ma doonaysaa in aad sida maskaxda ma doonay laakiin waxaan leenahay block message halka ay ku qoran tahay. Taas ayaa muhiim ah. Kadib qofkani message-kiisa block ay noqon doona. Hadaba sidee aan unblock oo dhigna hadii aad aan doonayn in aan soo ceshano calaamadii ayaan taabanayna dawada ka bacdi waxaan unblock message. That's easy way. Okay, waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysteen. Hadaba ha iloobina subscribe sameeysan channel-ka. Cashirkan waxaan idin soo codsiyaa aniga Cabdi Daahir fi